sidoo kale marxuumka waxaa ka mid ahaa dadka tacsida u diray gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee xisbiga wadani mudane cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde oo tacsi tiiraanyo leh la wadaagaya qoyska qaraabada ehelada asxaabta iyo weliba bahda professor cali khaliif galeyr rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye xamsada baare ayaa warkan Somaliland inooga soo diray gudoomiyaha kumeel gaarka xisbiga mucaaradka wadani cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde isagoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha xisbiga hoggaanka fulinta garabka dhalinyarada iyo haweenka xisbiga dhambaal tacsi u diraya ehelada iyo qaraabada qoyskii iyo asxaabtii waxgaradka waayeelka aqoon-yahaninta qaranka Somaliland iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay Allah u naxariistay marxuum professor cali khaliif galeyr oo maanta ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Gudoomiyuhu waxa uu marxuumka ku sifeeyay shakhsi miisaan iyo mudnaan ku leh qaranka Somaliland iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed noloshiisa oo dhan uu huray horumarinta haddii ay tahay aqoon iyo haddii ay xilal kale uu ka soo qabtay oo si agar la'aan u gutay waxaanu ahaa shakhsi nabadda ku weyn qulubta dadkiisa. Gudoomiyaha kumeel gaarka ah xisbiga wadani waxa uu Ilaahay uga baryayaa marxuumka inuu su'aalaha u fududeeyo una dambi dhaafo janno furduusana ka waraabiyo ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta iyo ka baxay samir iyo iimaan sadiiqa ka siiyo. إنا لله وإنا إليه راجعون. ورسحافدتكم waxaa ku saxinaa afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani barkad jaamac batuun xamsada bare.